الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد. waxaa in sha allahu tacaala maanta oo ah maalin isniina aynu u ballansannahay muxaadaradii uu ciwaankeedu ahaa alwasaaya alcaama lilnisaa, dardaaramo ama dardaaranno guud oo dumarka ku aadan oo inoo soo jeedinayo sheekhana alfaadil sheekh maxamed cabdi umar xafidahu allahu tacaala waracaah. in sha allahu tacaala muxaadarada laga faa'iidaysto. sheekhana waxaan ilaahay u weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala inuu miisaanka xasanaadka ugu daro. wixii su-aalaha in sha allahu tacaala muxaadarada kadib ayaan sheekha weydiin doonaa. haddana waxaan insha allah mikrofoonka uga baxaynaa sheekh maxamed cabdi umar xafidahu allahu tacaala waracaah oo aan kusoo dhoweynayno si uu insha allah muxaadarada inoogu soo gudbiyo. wajazahu llah khayran falyatafadal mashkuura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوات في الله، الله تبارك وتعالى أيام هادسكله oo ku mahadsan, ku ammaanan inuu dhammaystiran yahay, uusan dhimanaansho lahayn, ku ammaanan oo ku mahadsan sidoo kale inuu inoo nicmeeyey nicmooyin aan la tiro koobi karin. wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha. ilaahay nicmooyinkiisa haddaad tirisaan ma koobi kartaan. iyagoo nicmooyinku saa u fara badan, haddana waxaa ugu qaalisan oo ugu qiimo badan nicmada diinta iyo iimaanka iyo islaamnimada. ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu siiyaa dad uu jecel yahay oo keliya, baynamaa nicmada adduunyada uu ka dhaxaysiiyey dad uu jecel yahay iyo dad uusan jeclayn. in marka nicmada diinta ilaahay ku siiyo macnaheedu waxa way waa ku jecel yahay. waa xadiiskii nabigeena sal lla lay waslam baa macnaha tilmaamaya: in allaha yucطi اdunya man yuxib waman laa yuxib walaa yucطi اliimaana ila man yuxib. ilaahay adduunyada wuxuu siiyaa ciduu jecel yahay iyo cid uusan jeclayn, laakiin iimaanka ma siiyo ciduu jecel yahay cid aan ahayn. allah markayna siiyey maynaan ka iibsanin, mana aynaan mudanin, caqli iyo awoodna maynaan ku helin, bal maxdu fadli illaah, ilaahay fadligiisa iyo siismadiisa oo inoo gartay waay. taa waxay naga mudan tahay marka inaan ka mahad celinno nicmada, inaan qirno qiimaheedana garanno, aadna inoola weynaato, war ilaahay uga mahad celinno tabaaraka wa tacaala. qalbiga ka shukrino, carabka ka shukrino, xubnahana ka shukrino. nicmadaa ilaahay ina siiyey markaan saa u garanno kana shukrino, ilaahay waa inoo siyaadinaya, waa inugu sugayaa, waana inoo siyaadinaya. sida rabbigan yidhi tabaaraka wa tacaala: lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid. haddaad shukridaan waa idiin siyaadinaya, haddaad si shukrin weydaan oo kufridaan cadaabkaygu waa adag yahay buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala. marka walaalayaal, horta ilaahay waa ina doortay oo ruuxa ilaahay iimaan iyo islaamnimo iyo taacadiisa ilaahay ku hanuuniyey waa ruux ilaahay doortay waa, oo khalqigiisa uu ka doortay, kala dhex baxay waa, khayr iyo wanaagna uu u dooray waa. sida rabbigeen qur-aanka kariimka ku leeyahay: ثuma أwrثna الkitaaba اladiina اصطafayna min cibaadina faminhum ظaaliم لنفسه وminhum مqtaصid وminhum saabiq bاlkhayraati بإidn الlah
dadkii aan kitaabkan qur'aanka dhaxalka u siinay oon dhaxal siinay ayaa waxay yihiin dadka aan dooranay buu Alle tabaaraka wa tacaala ayaga aan isku mid ahayn mid waa galab oo zaalim li nafsihi waay waxna waa ka qasan yihiin waxna waa hagaajinaya mid waa muqtasid oo wax dhexdhexaad oo waa ruux wixii waajib ahaana gudanaya wixii xaraam ahaana ka fogaanaya ninna intaas waaba ka sii fiican yahay oo musaabiq bil khayraati weeyo wixii waajib ahaana waa gutay siyaadana waa ku daray sunna ah xaraantiina waa ka fogaaday wixii ka agdhow oo dhanna waa ka fogaaday saabiq bil khayraati waay saddexdoodu haba kala fiicnaadeen laakiin kulli waxay soo galayaan jannaatu cadnin yadkhuluunaha jannaday wada galayaan darajaadka jannada ha ku kala fiicnaadeen qaar ka mida waa dhici karta in cadaabka la mariyo oo laga gooyo wuxuu sameeyey laakiin waxay soo hoosgalayaan si guud dad ilaahay doortay waay marka ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmadaa uu ina siiyey waa ku mahadsan yahay waana ku ammaanan yahay waana inaan aad uga mahad celinno oo nicmadaasi qaali ina la noqoto dardaaramada aan doonayo insha allahu tacaala inaan idin idhaahdo waa dhowr qodob waay qodobka koobaad waxaan idin dardaarmayaa dardaarankii ilaahay tabaaraka wa tacaala inoo dardaarmay rasuulkiisuna sal alla alay wasalam inoo dardaarmay hal mid bay ahaayeen waxa ilaahayna dardaarmay rasuulkiisuna dardaarmay alla wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llah intii idinka horraysay iyo idinkaba waxaan idiin dardaarannay ama idiin dardaarmaynaa alla ka baqa allah iska jira iska ilaaliya taa waa dardaaranka alle uu inoo dardaarmay innaga keliya mee intii inaga horraysayna waa u dardaarmay nabigeennana salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkii cirbaad ibnu saariya cinda ahli sunan waxay ku yidhaahdeen nebiga sal alla alay wasalam yaa rasuula allah nebigaa wacdi u jeediyey wacdigii baa saxaabada aada u saameeyey markaasaa waxay dhi yaa rasuula allah kaannaha mawcidatu muwaddicin fa awsina waxaad mooddaa maanta wacdiga aadna wacdiday ninna sagootinahaya oo naga socda oo naga tegaya dardaarankii baad u egta hadalkaad maantana tidhi waa hadal aada u xeel dheer waa hadal quluubtanada saameeyey waa hadal u eg inaad naga socoto ood naga tegayso ee noo dardaaran bay yidhaahdeen markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam uusiikum bitaqwa allah waasamci waataaca waxaan idiin dardaarmayaa alla ka cabsi u fiirso ilaahay dardaarankiina sidaasuu ahaa nebiga dardaarankiisina waa sidaa maxaa yeelay kelimada alla ka cabsiga ee taqwadu waa kelimo aada u guda weyn oo wax ilaahay jecel yahayna kamayna tegin inay farto wax ilaahay necab yahay inay reebtana kama tegin diintii oo dhan baa marka ku idin kelimaadka jawaamicda ee shareecadu isticmaashay qur-aanku isticmaalay sunnadu isticmaashay bay ka mid tahay saas daraaddeed baa culimmadu waxay yidhaahdaan taqwada waxaa la yidhaahdaa in aad adiga iyo wixii ilaahay cuquubadiisa ah wax idiin dhaxeeya inaad samayso cadaabka ilaahay wax kaa celiya oo kaa teeda inaad la timaado oo muxuu noqon karaa inaad amarkiisana qaadato wuxuu kaa reebay inaad dayso marka liskoobkoo waxay noqonaysaa shareecada inaad qaadato taasaa waxay keenaysaa adiga iyo cuquubada rabbi inaad kala badbaadaan marka allah iska ilaaliya macnaheedu waxa weeye sharcigiisa qaata ilaan taa unbaa cuquubada idinka ilaalin kartee iyo cadaabka rabbi tabaaraka wa tacaala nabigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiiskii cabdillaahi bni cumar iyo kayrkiiba wuxuu rasuulku uhi sal lla alay wasalam halaaثun munjiyaat wa halaaثun muhlikaat saddex arrimood dadka waa badbaadiyaan saddexna waa halaagaan saddexda wax badbaadiye wuxuu ku daray nebigu sal lla alay wasalam khashyat اllahi fi الsiri wاlcalaaniya inaad ilaahay ka baqdo
qarsoodi iyo muuqasho labadaba haddaa lagu arkayo oo dadku ku arkayaan ood muuqatana ilaahay ka baq haddaad qarsoontahood gooni tahayna alla ka baq taasi waa waxyaalaha dadka badbaadiyay ka mid rabbiga marka baqdintiisa weynayntiisa inaad la kulmi doonto xuquuqdiisa inaad gudato inaad caabudo amarkiisa inaadan jabinin wixii uu kaa reebay inaad haddaad gasho xataa ka noqoto oo ka toobad keento oo aad rabbigaa raalligelintiisa ku dadaasho wuxuu jecel yahay jeclaato wuxuu necab yahayna aad necbaato sidaasi waa qodobka ugu horeeya koobaad qodobka haddii laga helana waxaad heshay furihii liibaanta adduun iyo aakhiraba liibaantoodii furihii baad heshay ilaahay tabaaraka wa tacaala arrimahaaga adduun iyo arrimahaaga aakhiraba allah fududaynaya waa ka qur-aanka kariimka rabbi ku sheegay tabaaraka wa tacaala waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra ciddii ilaahay ka baqda ilaahay arrimihiisa wuu u fududeeyaa waman yattaqi illaaha yukafir canhu sayi'aatihi ilaahay dunuubtiisuu dhaafaa ciddii ilaahay ka baqda tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu u sameeyaa yajcal lahu makhrajan dhibaatooyinka haysta siduu uga bixi lahaa iyo jidkuu kaga bixi lahaa baa ilaahay siinaya wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib meeluusan malaysanaynin ilaahay waa ka irsaaqaya marka qalbigaaga inay ilaahay cabsidiisu ku weynaato ood ilaahay qadariso oo weliba aad rabbigaa inuu ku arkayo oo ku daalacanayo oo kula socdo oo ku maqlayo oo inaad saa u dhaqanto qodobkaasi waa qodobka asaaska u ah kadibna aad ku dadaasho xaqa rabbiga inaad gudato amarkiisa aadan jabinin wuxuu yani kaa reebay inaad iska ilaaliso laanna dantaadaa ku jirta sideedaba haddaad aragto wax shareecadu diiday dhibaataa ku jirta waxa loo diiday bay qabtaa haddaad aragto wax shareecadu amartay maslaxadaa ku jirta adiga ama fahan ama ha fahmi laakiin waxay shareecadu jidaysay maslaxiya dan baa ku jirta faa'iidaa ku jirta inaad marka dantaada garato oo diintaada aad ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqiisa gudato waa qodobka koobaad wey qodobka labaad ee dardaaranku waxa weeye oo arrintaa horena asaas u ah ilaahay diintuu soo deji kitaab buu soo deji nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dhaxal buu ka tegey dhaxalkii nebi maxamed ka tegey xoolo ma ahayn laakiin diin buu ka tegey ilaahay tabaaraka wa tacaala malakul jibriil buu soo diray hadalkiisii buu u soo dhiibay yaa loo soo dhiibay nebi maxamed baa loo keenay yay ku socotaa adaa lagugu talagalay adigaa lagugu talagalay cid kale ha fiirini kitaabkaas soo degay rasuulka la soo diray hawshaa dhan ee isku rakiban adigaa laguu socdaa adaa laguu danaynayaa adduunkaaga iyo aakhiradaadaba mar hadday sidaa tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala hadiyadda uu ina siiyey iyo kitaabka uu inoo soo dejiyey waa inaan guddoonno oon aqbalno seen ku guddoomaynaa kow barashadiisa waa inaan ku dadaalno waa inaan waqti ku bixinno waa inaan muxuu ahaayey dadaal ku bixinno waa inaan kitaabkan waxa dhexdiisa ku jira ka war doonno waa inaan ka salgaadhno rabbi muxuu na faray oo kitaabkan nagu faray muxuu naga reebay noloshee buu noo jideeyey see buu jecel yahay see buu necab yahay qaabkee loo caabudaa see loogu dhowaadaa jannadiisa see lagu helaa cadaabkiisa see lagaga badbaadaa adduuniya aakhira liibaan see lagu gaadhaa kitaabkanay ku dhex jirtaayo waa inaad ka dhex raadiso wa saas daraaddeed diinta barashadeedu waa asaaska ugu horeeya ee ruuxa muslimkaa ku waajibay saas daraaddeed baa allah tabaaraka wa tacala qur-aanka kariimkaa saa ku sheegaya faclam annahu laa ilaaha ila allah baro baa la leeyahay oo ogow cid xaq lagu caabuda ma jirtoon alla ahayn tawxiidkii waxaa laga hormarinayaa cilmigaa laga hormarinaya barashada
سأصدرت العلماء وحي الأهدين أول واجب على العبد معرفة ربه أدونك وحا أقوه الرئيك واجبه إنه ربك برتوه إنه ربك قرتوه حقوق دي سقرته عبادته كعابده يبرته توحيدك برته سنة برته شركك برته سوي سجى إلى عليه بدعة برته سوي سجى إلى عليه معاصي يضاعض إنه كلا برته أدونك إنه دين تصدنا يوه رجع يضمر بقى وقضب أساسي وأنا ماشي وحينجاه اللي يسين أقول درّئنا أن إلهي كعابدنه ودين تبرشده دي بقى أين ندرينين مسألة ذا سوى مسألة عليس كذا لو وحين كينيسا إن إلهي نلشنا إنه عريريه آخرنا إن عذاب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ذكري جيجا عدي كتشي ستبر بتبارك وتعالى قرآن كان بآن دنينين فرشديسا لغيسيجيسا محوها فهم كيسا وعمل فل كيسا عن بدنينين وإساقتشي سدا الله وحو يدين نولل عديري أبو ليه ما أنت قيامتنا إساقو إندلاء بالكيني سيداسو عذابكي عرض إلهي كو قليا نار تدحي ذا لقاقت تقيا meeshaasuu ku calacalaya wax ka dhageysanayna ma jiro wax laga dhageysan ma jiro marka ilaahay diinkiisa dumarow hal la barto oo waqti hal la geliyo oo quraanka hal la barto oo tafsiirkiisa hal la barto oo cibaadaadka saxda oo weysada iyo tahaarada iyo salaada iyo soonka iyo cibaadaadka kale ilaahay waxaad ugu dhawaanaysaan ha noqdo waxaad hubtaan oo garanaysaan inuu saxsan yahay wixii khalad geli karana aad fahmaysaan oo ka ilaalisaan cibaadad sidaas oo nadiif ilaahay ula tag laakiin haday dhacdo inay diinteena iyo cibaadaadkeenu iska noqdaan waa la sameyn jiray samee waanu arki jirnay saanu arki jirnay aabiyo hooyaan ka soo gaarnay waa iska sameeynaynaa hada waxa laga yaabaa nasiib darro inay nagu dhacdo oo tacab khasaarno oo aan noqono sida nabigu nin uu sheegay sallallahu alayhi wasallam oo uu yiri nin baa jira 60 sano tukanay 60 sano ayuu tukanay 60 sano markuu tukanay Allah u tagay tabaaraka wa taala hal salaad alla laga aqbalay taabki 60 sano uu tabcayay hal kamida uma bayaalaba waxa ilaahay agtiisa uma yaal sababtu maxay ku dhacday 60 ka sare uu tukanayay mar rukuucdu haleynayay marna sujuudu haleynayay mar faatixada ka haleysay mar tahiyaadka ka haleysay salaad quman ba ilaahay uma tagin asaga hada waa isla qumana ogo waana tukanahayo waa dadaalahay laakiin dadaalkiisa wuxuu ahaa dadaal cilmi darra oo jahli ku salaysan marka mid ka yaab ilaahay intuu aqli ku siiyay oo qalbi ku siiyay oo indha ku siiyay oo dhaga ku siiyay oo inta kugu nimceeyay oo caafimaad ku siiyay haddana inta soo dhan inaadan waxba kaga bixinin ilaahay ina diinkiisa barato oo rabbiga barato si saxana aad u caabudo waa su'aal ka daba iman doonto waa su'aal ka daba iman doonto marka dardaarankaygu waxa weeye dumarow diinta barta oo jaaniska ka faa'iideysta oo dugsiyada taga oo masaajida wax laga akhriyo taga oo gurigiina waxyaalo fara badan oo hadda teknolojiyadu sahashay baa jire idinkoo gurigiina joogaad wax badan baran kartaan oo diinta wixii idinka qarsooma daneeyo culimada weydiiya oo wax saxsan ilaahay la hortaga tabaaraka wa taala aqeeda saxsan amal saxsan daaca iyo cibaado saxsan wax saxsan oo abaalgud aad ku heshaan ilaahay la hortaga tabaaraka wa taala arintaasi waa arin runtii muhiim ah aad iyo aadna muhiim ah jahliga in laga baxo oo diinta la barto oo aqoonteeda wax laga qaato iyadana waa qodob asaasi ah waana meeshii nabigu sallallahu alayhi wasallam diinta ka bilaabay yani ilaahay tabaaraka wa taala quraan kariimka sidoo ku sheegay nabigu dadka wuxuu wax uga bilaabay inuu diinta baro ويعلمهم الكتاب والحكمة كتابك يا السنة إنه ذاتك برو ويزكيهم كتربيه
halkaasay mujtamacu ka bilowdaa diintuna ka bilaabato marka diinta barashadeeda ku dadaala cilmi la'aan iyo aqoon darro diin la'aan waa diin la'aan waana aakhira la'aan waana adduun la'aan waa qodobka saddexaad iyo dardaaranka saddexaadan idiin dardaarmayo waxa weeye inaad ilaalisaan diinta waajibaadkeeda ilaahay wuxuu idinku waajibiyey inaad ilaalisaan faraa'idda waaweyn ee diinta inaad gudataan oo ay ugu horrayso salaaddii gudataan xoolihiinna midda xoolaha leh sekada waajibkaa ka bixiso soonka aad soontaan ciddii awoodi karaysa oo tabartii heli karto jidkii iyo ka bixi karta inay xajkii tagto waajibaadka waaweyn ee shareecadii arkaanteeda inaad xifdisaan waana waxa ilaahay ugu jecel xadiisulqudsigii waa ka rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabba ilaya mima aftaradtu calayh addoonkaygu wuxuu iigu soo dhowaado waxaan ugu jeclahay buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala waxaan ku waajibiyey wax waajibkii inaad hagaajiso buu ilaahay ugu jecel yahay waxaad ugu dhowaato marka waajibaadka toosiya waxa ugu horreeya maalinta qiyaamada ilaahay kaala xisaabtami doonana waa waajibaadkana waxa ugu horreeya salaada u horreysa salaadu hadday galab kaa noqoto wax kaloo ku hagaagaya maba jiraba xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu nabigu leeyahay awwalu ma yuhaasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyamati as-salah waxa ugu horreeya maalinta qiyaamada adoonka laga xisaabin doono waa salaada hadday hagaagto xisaabtaasi si fiican ku dhacdo amalka intiisa kalena waa raacaya waa hagaagaya hadday halowdo oo xisaabtii salaadu aad ku dhacdo wax kale oo ku hagaagaya maba jiraba salaadu marka waa furihii khayrka waa adduuniya aakhiraba waxa khayr ku furi waa salaada inaad hagaajiso salaad qumano tii lagu direena inaad tukato salaadana aad waqtigeeda dahaaradeeda shuruudeeda arkaanteeda inaad ilaaliso salaad saxsan aad tukato qodobkaasi waa qodob asaasi ah kadibna waajibaadkii kale shariicada inaad ku dadaashaan insha Allah ta'ala maxaa yeelay ruuxu waajibaadka hadduu ku taagsado insha Allah janno waa galaya nin baa nabiga u yimi sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu ku yidhi Arabi uu ahaa rasuul Allah ilaahay muxuu igu leeyahay oo salaada 5 salaadood baa lagu leeyahay maalinkii iyo habeenkii maxaa soon lagu leeyahay bisha ramadaan baa lagu leeyahay waajibaadkii markuu u sheegay buu intuu iska kacay oo tagay buu wuxuu yidhi wallahi inaanan inta ka siyaadinin inta waxba ku dari maayo laakiin inta waan ilaalin nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam aflaha in sadaq hadduu ka run sheego ka dhabeeyo oo waajibaadka uu ilaaliyo waxba yuusan ku siyaadinin waa liibaanay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam sababtu waxa ruux hadduu waajibaadka saxo siday ahayd ula yimaado ilaahay tabaaraka wa tacaala bifadlihi wa mannihi janna waa galay laakiin waajibaadkii hadday qasmaan oo dayacdo xageed ku socotaa way markaas nasiib darro iyo musiibo iyo balaayo dhan ayaad markaa halis ugu jirtaa saas daraadeed waajibaadka diinta ilaaliya oo muxuu ahaayay faraa'idda waaweyn ilaaliya oo arkaanteeda ilaaliya ciddii ku dari karta sunnooyin ku dari kartana way ka sii fiicanta oo salaad kasta inaad sunnooyinkeeda raaciso laana nabiga sida ka soo sallallahu alayhi wasallam cibaadadii waajibka ahayd markii laga xisaabiyo hadday wax isdhimaan oo galab noqoto rabbi wuxuu leeyahay bal fiiriya wax sunna amaleeya faylkii diiwaankii sunnada la furaya haddii sunna laga helo waajibka wixii ka nusqaamay baa lagu kabaya haddii sunna lagu waayo waajibkiina sidii la rabay uusan ahayn hada markaasi waxa weeye halis baata xaalad culus baa ku haysata marka waa mid rabbigeen inagu jeclaanayo tabaaraka wa tacaala wala yazaalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba adoonkaygu inuu sunnooyinka iigu soo dhawaanayo ka zuuli maayo ilaa aan ka jeclaado sunnooyinkani waxay keenaysaa waajibka marka aad hagaajiso kadib ilaahay jacaylkiisa aad ku gaadhi ilaahay hadduu ku jeclaadana maxaa dhacay
wuxuu noqonayaa ilaahay kaalmuu kuu noqonaya waa ku ilaalinaya indhahaagii buu noqon dhagahaagii buu noqon gacmahaagii buu noqon lugahaagii buu noqon maxaa laga wadaa bimacnaa asagaa ku xifdinayo kuu kaalmaynaya saas daraaddeed sunnooyinka haddaad ku dari kartaanna ku dara asalkuse waajibka in la hagaajiyaa wax walba ka muhiimsan qodobkaasna waa qodob asaasi ah oo waa meelaha aan ku imtixaananahay bay ka mid tahay laguna kala bixi doono qodobka kaleeteen doonaya insha allah wasiyada afraad ama dardaaranka afraad ee aan jeclahay isagana inaan dhagihiinna maqashiiyo waxa weeyaan in aad xaaraamta iyo wixii ilaahay reebay ayadana ka fogaataan xaaraamta haddana sii kala waaweyn shirkigaa u weyn iyo gaalnimada bidcada waxyaalaha aan diinta ka mid ahayn ee diinta lasoo dhexgeliyee diinta laynooga dhigayo dunuubta kale waaweyn sida sixirka iyo zinada iyo agoonta xoolaheedoo la cuno waalidiintoo caaq lagu noqdo dadka oo la dulmiyo la qadfo oo sharafkooda meel lagaga dhaco dadka oo la xanto xoolo xaaraam oo la cuno ilaahay wuxuu xarimay in aad iska ilaaliso dhiig islaam oo la galo ama gacanta yeelo ama kii gacanta lahaa ku kaalme waxaas muxaramaadka waaweynna inaan iska ilaalino maxaa yeelay xaaraantaasi waxay keenaysaa haddaad iska ilaalin weydo in adduunkaagiiyo aakhiradaba halis gasho leanna waxa weeye ilaahay jannadiisa waxaa lagu galaa inaad naftaada waxay rabto ka celiso ilaahay hor istaaggiisana aad ka baqdo wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha annafsa cani alhawaa fa ina aljannata hiya alma'waa ruuxii ilaahay hor istaaggiisa iyo la kulankiisa ka baqa ilaahay baad hortegi doontaa kula xisaabtami doonta naftuna waxay rabto ka celiya hoygiisu waa janno naftu maxay rabtaa inay wax qasatay rabtaa inay zinaysatay rabtaa inay wax hadday rabtaa inay wax dishay rabtaa inay wax xamatay rabtaa inay dadka isku dirdirtay rabtaa inay balaayo ka shaqaysay rabtaa inay isqaawisay rabtaa inay waajibaadka dayacday rabtaa shaydaan bay saaxiib la taho meel xun bay u socotaa naftas waxay rabtaa haddaadan ka celinin xaggay kuu hogaaminaysaa naar bay kuu hogaaminaysaa waatuu nebigu lehy sal lla alay wasalam naarta waxaa lagu xayndaabay shahawaadka waxay naftu jecesha naarta taasaa xayndaab u ah jannadana waxaa lagu xayndaabay waxyaalahay naftu necebta sidaas daraaddeed waajibaadka haddaad hagaajiso wixii xaaraanana iska ilaali hadday kaa dhacdo bini aadan baad oo macsuum mati oo naf iyo shaydaan baa kugu tacalluqa oo lugtaa kula fikanoo waad simbirraxan waxaa la rabaa ha ishalmaamina soo noqo intaad jaaniska haysato soo noqo xumaantaa ku madax adayga markaad samaynaysana qalbigaagu ha gubto oo iimaankaa keenaya hadday kaa dhacdana waa inaad ka qoomamooto qalbigaagu xanuunsado la joogi weydo ilaahay u soo laabato dembi dhaaf weydiisato xaalkaaga hagaajiso ilahay waa kuu dhaafaya insha allahu tacaala waxuusan ilaahay dhaafinna ma jiro ina allaha yakfiru dunuuba jamiica mar haddii loo tawbad keeno loo soo noqdo si dhab ah wuxuusan dhaafin maba jiraba dembiga ka ugu yar iyo ka ugu weyn sida xadiis ku yimid bini aadamow haddaad iila timaaddo buuraha waxaan u jeeda daruuraha wax buuxiya ama dhulka iyo samada inta u dhaxaysa dembi buuxinay haddaad iila timaaddo kadibna aad ii timaaddo adoo ka soo noqday oo tawbad keenay waa kuu dhaafaya umana aaba yeelayo marka tawbadda ogaada oo wixii inaga khaldamay ilaahay aan u soo noqonno wixii kalena aan hagaajinno nolosheennana maalinba maalinta ka dambaysa aan khayr siyaadsanno maalin markay kuu kordho waxaa la doonayaa dhanka khayrka inaad u badato camal cusub inaad siyaadiso kii hore inaad siyaadiso
leanna noloshaadu mar kastoy soo dhowaataba waxaa la rabaa khayrka inaad badiso mar walba yani waxa weeye aad sii durugto ood xagga geerida usii durugtaba waxaa la rabaa in khayrkaagu bato si khaatumo wanaagsan aad ugu dhimato insha allahu tacaala marka dunuubta waaweyn iyo dembiyada dhammaantoodba ha la yska ilaaliyo insha allahu tacaala oo aada uga taxadara maxaa yeelay ruuxu iimaankiisu wuxuu kaamil ku yahay oo ku fiican yahay oo ku sugnaanaya inuu dunuubta waaweyn ka fogaado oo naco wakaraha ilaykum alkufra waalfusuuqa waalcisyaana ulaa'ika hum alraashiduun ilaahay wuxuu idinka haday gaalnimada iyo fisqiga iyo dunuubta ilaahay waa idinka haday marka inaad kahato hadday wax kaa dhacaanna saxdo iyadana waa qodob aan doonayo insha allah inaan idiin dardaarmo dardaaranka shanaadeen jeclahay inaan idiin dardaarmo waxa weeye gabdhaha muslimaadka ah in aad ogaataan xishoodka alxayaau min aliimaan waalxayaau kulluhu khayr xishoodka dhammaantii waa khayr xishoodkuna iimaankuu ka mid yahay nebigeennuna waa xishood badnaan jiray sal alla alay wasalam xadiidkuna wuxuu ahaa ina mima adraka annaasu min kalaami الnubuwati اlأuulى إida lam tastaxi cawradaada ayaysan arkin buu yidhi ka warran haddaan keligay ahay keligay cid kale lama joogto nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam faallaahu axaqu an yustaxyaa minhu min annaas ilaahay baa cid walba ka mudan in laga xishoodo xataa haddaad keligaa tahay ilaahay baa ku labeeya saas daraaddeed rabbigaa ka xishood marka ilaahay ka xishooda rabbi markaad ka xishoonaysana keligaa iyo markii lagu joogo lagula joogo waa isku mid marka intaadan khalqiga ka xishoonin rabbigaa ka xishood xishoodka waxaa ka dhalanaya inay gabadha muslimadda asturka ku dadaasho inay xijaabka ku dadaasho in jidhkeeda qaaligae qiimaha badan ayna waraabaha u goglin waraabaha inayna siinin wixii la qariyo iyo wixii la asturo iyo wixii la qiimeeyo ibni aadanka waa la qiimaysan yahay laakiin wixii hilib bisil oo bannaanka laga helo hadduu noqdo oo jidkaa marka la marayo nin walba ishiisu ku dhacdo oo ninkii u soo baahdaayo si fudud uu ku helo waa qiimo beelaysaa ilaahay asturkan ciyaar ciyaar uma samayn dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wanaagga iyo dhowrsoonaanta iyo cifada in lagugu bartaay waa karaamo iyo sharaf in qaawanaan iyo dullinnimo iyo muxuu ahaayey fuxshina lagugu bartana waa dullinnimo adduuniya aakhiraba saas daraaddeed dhowrsoonaanta xijaabka asturka is-ilaalinta waa kii rabbigeen tabaaraka wa tacaala nebigiisa amarka ku siiyey gabdhaha muslimaadka ah ballan la gal nabi maxamedow hadday kuu yimaadaan oo qodobo dhowra ay ballan kugula gelayaan ballantaa la gal baa la yidhi maxay yaa ayuha annabiyu aayatulbayca la yidhahdaa idaa jaa'aka almu'minaatu yubaayicnaka calaa an laa yushrikna biاllahi shay-an walaa yasriqna walaa yazniina walaa yaqtulna أwlaadahunna walaa ya'tiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihinna waarjulihin walaa yacsiinaka fii macruufin fabaayichunna wاstaqfir lahuna allah xoojiya xishoodkana ku dadaala biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa aad bay uga qiimaysan tahay gabadha muslimadda ee asturan ee xijaaban ee jidhkeeda iyo sharafkeeda ilaashanaysa waxaa ka mid ah in haddii aadan dan weyn ayna bannaanka kaa jirin inaad gurigaaga u badato waqarna fii buyuutikunna guryihiinna ku sugnaada walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa dumarkii gaaladahaa ee islaamka ka horreeyey siday quruxdooda bannaanka u geyn jireen oo kale bannaanka ha geynina quruxdiinna iyo ziinadiinna bannaanka ha geynina gurigiinna ku sugnaada haddaad dan leedihiinna waa laydiin idmay inaad soo danaysataan laakiin gurigu waa meeshii sharafka waa boqortooyadiinna waa meeshaad ku dhowrsoon tihiin waa meesha gabadha intay joogta ay ugu fadli badan taho nolosheeda ugu qiimo badan tahay inaad guriga aad ku sugnaataan oo inayba dani kallifta mooyaane inaydaan wareegin
oo suuqyadoo la wareego qolqolladoo la wareego noloshoo lagu qaato un bannaanada in la wareegaysto macno weyn kuma fadhida gabadha muslimadda ana dhib weyn bay u geysanaysaa marka inaad ilaalisaan insha Allah ta'ala muxuu ahaayay akhlaaqiyadkana inaad ilaalisaan akhlaaqda wanaagsan dhaqanka wanaagsan nabigu siduu sheegay sallallahu alayhi wasallam waxay miisaanka qiyaamada maalinta qiyaamada miisaanka xasanaadka amal ka xoog badan ma jiro inaad akhlaaq wanaagsanto dhaqan wanaagsanto dabeecad macaan tahay oo ilaa shan tahay oo dhowrsoon tahay oo asturan tahay oo ruux dhowrsoon aad tahay ruux akhlaaq leh aad tahay waxay miisaanka xasanaadka ku kordhinaysaa culays aan sahlanayn qodobka marka ku dadaala insha Allah ta'ala intii ilaahay idin siiyayna Allah idin ku sugo inta kaleetana insha Allah ta'ala ku dadaalo ilaaliya qodobka kaleetan jeclahay insha Allah ta'ala inaan dardaaranka ku daro waxa weeye ilaahay xaqiisa hadaad gudataan xaq khalqigana guta makhluuqaadka idin la xiriira xaqoodana guta ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan dadka akhlaaq wanaagsan kula dhaqan xaqooda si waxooda ha ku xad gudbin iska ilaali waxaad ku dhaanto ku tar adiga xaqaaga iyo dhibkaaga ka ilaali makhluuqa ilaahay waxaad ula dhaqantaa naftaada oo kale oo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ruuxi jecel in janno la geeyo naarna laga fogeeyo fal ta'tihi maniyatuhu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir geeridu ha u timaado isagoo Allah iyo maalinta aakhiro rumaysa wal ya'ti ila an-nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi dadkana ha ula yimaado waxa uu jecel yahay in isaga loola yimaado waxaad jeceshahay in adiga lagugula dhaqmo dadka kula dhaqmo waxaadan jeclayn in lagugula dhaqmo dadka kula dhaqmo ruuxi ibni aadamki kula noolaa muslimka waxaad ula dhaqantaa sidaad oo kale naftaada oo kale ka soo qaad ha dulminin maxay leeyahay in lagu dulmiyo ma jecel ha ku xad gudbin ma jecel in lagu xad gudbo dib ha u geysanin ma jecel dib lagu geysto waxaaga wax ka sii maxay leeyahay waxa jeceshahay in wax lagu siiyo dadka adoo kale ka soo qaad hadaad qodobka samayso insha Allah ta'ala jannada ilaahay baad gali naarna waa laga fogeyna nabi maxamed waa sheegay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi marka akhlaaqda wanaagsan dadka kula dhaqma cidda ugu horeysa idin ka mudan inaad xaqiisa gudataan khalqiga marka la yiraahdo waa ninkiina waa cidiina guryaha leh ninku waa xaqa ugu horeeya ugu weyn waa saas daradeed baa nabigeenu meeshuu dhigay u fiir salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ciduna hadaan dhihi lahaa cid u sujuud haweenta aan ilaa ninkaagu sujuud xaqiisa weynankiisa darteed laakiin ilaahay baa loo sujuudaa wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam haweentu haday shanteeda salaadood tukato oo bisheeda ramadaan soonto oo ay zawjkeediya ninkeeda ateecdo isagoo raali ah ay ku kala tagaan ama ku dhintaan xubinkeeda tarankana ay ilaaliso oo zina iyo fuxsh iyo xumaan iska ilaaliso nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam afarta qodob haday samayso maalinta qiyaamada waxa lagu dhigi doonaa sideeda albaab ee jannada ka doonto ka gal marka waxyaalaha jannada aad ku galeysaan waxa kamida inaad gurigiina kala dambeyntiisa ilaalisaan oo zawjkiina ateecdaan oo wixii khayr ee shariicada aan ka hor iimaanayna uga dambeysaan oo aydan isku taagin oo guriga aydan burburinin oo aydan muxuu ahaay noloshii guriga aydan ka dhigin nolol cidhiiriyo dhib badan nolol loo soo hiloobo oo ninku ku farxo oo markuu joogo uu ku dego oo isku nasataan nolol macaan oo lagu kala dambeeyo inaad ka dhigtaan noloshii guriga oo xuquuqdii guriga aad gudataan laana waxa weeye gurigu waa hoygii wadaadku iimaanay oo hooyadu ku noolay oo gabdhuhu ku noolaan oo wiilashu ku noolaan oo mujtamaca laga barbaarinayo waa hoygii cid walba ay ka soo baxaysay hoygaana idinka gacanta ku hayay intiisa badan guriga kala dambeyntiisa marka inaad ilaalisaan oo khaasatan waayahan dambe gaala inugu soo dushay kuwa inaga mid oo afkeena ku hadlayo inaga dhashay bay soo isticmaaleen waxa ugu badan ee laga shaqeynaya in guryaha la idinka saaro in banaanka la idin diro in la idin tuso gurigoo la joogo caruurta la koriyo oo ninka laga dambeeyo oo gurigu kala dambeyn yeesho gumaysi in la idin tuso maskaxdiina in la qabsado
oo maskaxda laynaga gumaysto oo gaala rumuud inoo qabato oo intay telefishinada iyo idaacadaha iyo warbaahinta inoo soo maraan dumar inaga dhashayna inoo soo isticmaalaan wixii wanaag ahaa inay xumaan inooga dhigaan kadibna gabdhihii muslimaadka ahaayoo le maba dhalaynaba sheekh carruurta waa lagu kadeedmay war 2 ilmood bas aniga iga dhal oo 3 bas haddaad dadaasho xataa 3 ka dhig laakiin waxaan faraha badan qulqulinayo waa laga tagay na carruurta dhalo ummadda badi maya sheekh ana kadeedi ana kadeedka nagada waa la dhaafi waxaas haye لا guriga joogo ilmaha korso oo odayga biilka ku filano maya xuquuqda nadi baan raadsanaynayo siyaasad baan galayna wasiiraan noqonayna haga u socota war maya meesha waa laga war dukaan baan furanayaa ay adarow maalintaada ilmaha hay oo maalintaada jikada galo raashinka soo kari aniguna maalinteedaan soo shaqeyn adna maalintaada soo shaqeyn war waxaasi wax saxsan ma waxaasi waa waxay gaala doonayso inay nagu burburiso ayadaa burburtay Soomaalidu waxay dhadaan nin ka wala'aan wuxuu jecel yahay dadka dhan inay ka wala'aan noqdaan ila waa xaasid mugta waa xaasid nin xun oo xaasida wanaag kula ma jecla gaala waxay ka xun tahay inaan mujtamac ahaan iyo bulsho ahaan u dhisannay waxay ka xun tahay inaan qoysas ahaan u dhisannay waxay ka xun tahay inaan wali ishaysanno iyadaa burburtay qoysaskoodii kala tageen ninkii naagtu markay isu imaanayaan mid walba isaga keensanayo malqacadiisa iyo fujaankiisa iyo qaadadiisa wala xisaabtamaya ilaan ayadiina way foofaysaa isagana waa foofaya hadduu malqacada keeno waa inay qaadada keento hadduu fujaanka soo iibiyo saxanka waa inay digsiga soo iibiso xilligeeda waa inay gasho jikada isaguna waa inuu xilligiisa galo caruur iyo taran iyo يعني نولل دغن iyo ma jirto waa xoolo meel ku wada xarooday waxa layna la damacsan yahay taayada hooyadii karaamada lahayd ee sharafta lahayd ee boqorada ahayd ee markastoo siida awdaba wiilkeeda madaxweynaha u talinaysa wiilkeeda caalimta amarka siinaysa mujtamaca dhanba markay sii weynaataba iyadoo amarka siinaysa hooyadii iyadahayd waxa la rabaa in meelaha lagu tuuro dadka lagu xanaaneeyo waaweyn oo kadibna guri la geliyo kadibna ay wehel looga dhigo hadda way dhashay carruur dhashagu akhiran marka ugu dambaysa iyadii ay baa ku soo hadhaya guriga aygaasay wehel ka dhiganaysa marka dambe waxa dhici karta iyadoo loogeyn intay bakhtido inuu aygu cuno waxa la inagu wada gaala raac iyo waxa dhaqankooda ka shaqeynaya meesha ina la rabaan waa meesha iyada waxaan indhiilaa marka maskaxdeena aan la qabsanin oo yaan lay maskaxda laynaga soo duulin oo yaan layna gumaysanin gumaysiga maskaxda wax ka daran ma jiro sharaf waa kii diinteena dhaqan waa keeni dadnimo waa tii ilaahay ina siiyay diin waa ta Allah ina siiyay wax inaga maqani ma jiro ninka ina xastaye doonaya taa inuu inaga qaadana waa inaan fahanno marka ku dadaala akhlaaqda wanaagsan xuquuqda guta muxuu ahay ninkiina iyo guriga xuquuqdiisa carruurtiina xuquuqdeeda waalidiinta xuquuqdooda qaraabada iyo ehelka xuquuqdooda dariska xuquuqdiisa ilaahay xaqiisa markaad gudato xaqa makhluuqana insha Allah ta'ala ayadana ilaaliya oo kuwa yowga aan tilmaanay ay kamid yihiin insha Allah ta'ala waxa kamid oo jecel ayadana inaan wax yar idin ayadana ku dardaaranka inaad iska ilaalisaan inaydan ku kadsoomin adduunkan maanta aan joogno iyo muuqaaladiisa adduunyada sidoo ilaahay ku sheegay waa daarul ghuruur wama alxayaatu ad-dunya illa mataa'ul ghuruur wa alaab yar oon qiimo lahayn laakiin dadku ku sirmaan oo ku kadsoomaan waa saas daraadeed buu ilaahay aad uga digay oo uu yiri quruxdeeda beenta ha ku kadsoomina oo labiskeeda quruxsan ee beenta ayuusan idin sirin waa meel lagu baaba'ay oo lagu halaagsamay ee ha kadsoomina adduunyadii waagii horaday dadka kadin jirtay hadda farsamo kale la soo baxdo wixii horeba ka khatarsan wixii hore dhan kama halisanba inba wuxuu yiri muxuu ahay hooyadeen maxaad ku ogeyd buu misaayideen in dhala'aan dad cunnimay ku darsatay buu
hadda adduunyada maanta joogtay dad cudnimay ku darsatay tii hore waa ka darantay adduunyo fasaadsan inaad shilinkeeda heshaay si xalaal aad ku heshaay adagta si xalaal aad ku heshaay ay adagta fitnadeeda si aad kaga badbaado ay adagta telefishin iyo idaacad iyo journal iyo wixii oo dhan wax been yidhiyo internet la yidhaahdo iyo YouTube iyo Facebook iyo balaayo dambe soo socota masaajidka marka hadda la fadhiyo oo darsiga la dhageysanayo muxaadarada la dhageysanayo in badan hoostaasa mobilada laga garaacay waxaa lagu jiraa sheeko aynaan ogeyn qaaradaha ka shishaa lala sheekaysanayo hadda ogow darsi baa la dhegaysanaya adduunyo waxaan joognaa meel laba aan nagaga hadhayninba salaadii baa lagu jiraa mise boqol tolofeen baa iska soo dhacay qalow xagga qalow hadda qalow adduunyo waxaan joognaa maalinkay ugu khatarsaneed oo ugu fidna badnayd baan maraynaa sidaas daraaddeed dumarow ha kadsoomina oo adduunyayayna idin khaldin oo horay baa loo soo tabcay oo waa laga tegey oo waa la dhisay oo waa laga tegey oo ninkii faqiir ahaa iyo kii qani ahaa way israaceen oo maalmo kooban baad ku leedihiin maalmaha iyaga ah ilaahay daacadiisa uga faa'iideysta fidnada adduunyadana iska xifdiya nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa la weydiiyey rasuul ilaahay oo waxaad ii sheegtaa camal jannada ii geliya naartana iga fogeey xadiidkii sahl ibnu sacad nebigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam camal ilaahay ugu jeclaado khalquna igu jeclaado nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam adduunka ka zaahid ilaahay baa ku jeclaanaya ku zaahido wixii uun dan laga maarmaana ka qaado laakiin ha israacinin hammigaaga iyo murugtaada adduun ha ka dhigin walbahaarkaaga adduunka ha u badinin ilaahay balaayuu kugu furaya xadiiskii waa kii nebigu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh murugtiisa ninkii ka dhiga murug adduunyo walbahaarkiisa adduunyo un u badiya oo xaggaa uun ka fikira ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku ibtileeyaa kow adduunyadiisa waa laga kala daadiyaa xadhigguu xidhan waa laga furaa laba isugu guntami maayaan waa midda labaade faqrigana indhaha dhexdoodaa laga saaraya qalbiga iyo indhaha iyo noloshiisao dhan baahi baa laga dhigaya maba dhergayaba waa midda saddexaade waxaa lagu ibtilaynayaa siduu nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh adduunka sidaa uu u noqday wixii loo qoray waxaan hayn ka heli maayo weligaaba nagnagle oo israfaadi haddiise murugtaada aad murug aakhare ka dhigto oo aad ka fikirto waad dhimanaysaa war qabri baad gelaysaa maxaa kuu yaalla maxaa kaa horreeya ilaahay baad la kulmi doontaayo maxaad ka jawaabi war siraad baa jire maxaad ku mari doontaa war ma jannaad ku dambayn doontaa mise naar rabbigaa raalli miyuu kaa yahay mise waa kuu cadhaysan yahay wixii laguu diray ma samaysa mise waxbaa kaa hadlaysa murugtiisa murug aakhara ruuxii ka dhiga nebigu wuxuu uhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh arrimihiisa ilaahay baa u ururiya qalbigana qaninimo iyo deganaanshaa loo geliyaa iyo qanacsanaan adduunka wixii loo qorayna ayadoo sanka ka tolanoo qasabaa loo keenaa marka adduunka ha kadsoominoo ha khaldamina madaahirtan iyo muuqaaladan iyo ziinadan adduunyada iyo fitankeeda soo batay ha israacinina ee iska kala reeba oo wax badan iska fududeeya oo inta xaajada iyo daruurada ka qaata wixii dantiinna adduunyo iyo aakharo idinku kaalmaynaya waxeeda kalena ha israacinina aakharaha loo diyaargaroobo oo aakhara sahay ha loo sahay qaato oo geeddi baan ku jirnaaye maalmo yar baa inoo laaban hooyooyinkiin baa dhintay oo aabbayaashiin baa dhintay oo cimri baad ku jirtaan gabadha maanta 20 jirka ah 20 sanay soo martay hal saacad inay soo joogtay lama ah midda 40 jirka markay 40kii sano dib u akhrido 40 sana soo jirtay iskaba dhaafay talow hal saac ma joogtay baad isdhi inta yartee ku laabanna sida adoon dareemin bay dhamaani maalin dhowna qabri un baa lagu geyn halka waxaad ugu tagi doontaa xaqiiqo aad maanta ismoodsiinayso ood ka warwareegayso ayaad waajihi doontaa sidaas daraaddeed aakharaha loo diyaar garoobo guuridiga iyo geediga ha loo diyaar garoobo
rixladaasi ha laysu diyaariyo qabri ha laysu diyaariyo qiyaamo ha laysu diyaariyo kulan aakhira ha laysu diyaariyo laakiin adduunyadani aad ha laysaga fududeeyo fitankeeda iyo isdabaraacinteeda iyo madaahirteeda iyo caabudiddeeda ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna xifdiyo daarta aakhirana ha laysu diyaariyo adduunyadana aad ha laysaga fududeeyo waajibaadka diinta ha la ilaaliyo wixii xumaana ha layska dhowro qurbahan aad joogtaan iyo meeshan aad joogtaan waa meelo halisa gaalaad ku dhex nooshihiin mawjadaad ku dhex nooshihiin mujtamacaad waxaa soo ka dhex gasheen aad ka diin tihiin oo idinku diin ahayn aydaan la akhlaaq ahayn aydaan la labis ahayn aydaan la fikro iyo caqiido ahayn mujtamaca waxaad dhex timaadeen wax walba aad kaga gedisantihiin mujtamaca noocaasoo kaleetaana iska ilaalintiisa iyo isku ilaalintiisu waa masalo u baahan dadaal ziyaada waxaan idin leeyahay marka khayrka u soo bata oo masaajidda iyo muxaadaraadka iyo duruusta iyo dugsiyada guryihiinnana ha noqdeen goobo khayr ha noqdeen guryaha heesaha ka saara oo muusika ka saara oo telefishinna hadday idinku jiraan kontaroola carruurta ha ku sii daynina haddii internet idinku jiro kontaroola oo wax ilaashan ka dhiga oo ha ku sii daynina meeshaasi waa madraso sharwa balaayaa laga bartaa oo qashin oo dhan baa ku jira oo inta xun baa isugu timaada oo khayr badan lagama faa'iido wax badan lagama faa'iido dan yar oo aad u uruursan ninkii kala baxaya mooyaane balaayaa meeshaa ku jirta sidaas daraaddeed guryaha daahiriya oo quluubtiinna daahiriya oo jidhkiinna astura oo xidhiidhka rabbi adkeeya oo khaatumo wanaagsan iyo aakharo u diyaar garooba oo ilaahay cadaabkiisa waxaad kaga badbaadi lahaydeen shaqaysta jannada rabbi waxaad ku galeedeen ridihiisa ku heli lahaydeen iyo wejigiisa inaad daawataanna in sha allahu tacaala ha lala yimaado ilaahay hayna xifdiyo adduuniya aakharaba cadaabkiisana allah inaga xifdiyo jannadiisa ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna siiyo ilaahay diinta haynoo dhowro akhlaaqda haynoo dhowro oo ilaahay tabaaraka wa tacaala guryaha haynoo dhowro oo ilaahay adduuniya aakharaba labada daaroodba allah inagu liibaano wixii dhibaato inoo geysanaya sharna allah inaga xifdiyo jazakum allahu khayr wabaarak fiikum assalaamu calaykum waraxmat ullah وعليكم السلام ورحمة الله وجزاك الله خير وبارك الله فيك وأحسن الله إليك محاضرة قيمها بضن الله ينوافعه ميزانك حسنات كان إلهي سبحانه وتعالى شيخها وقدره وقت هو عليلي أدرتي سؤالك وضم الشيخ ويديننا إن شاء الله تعالى وحنا نعطسنا إن نسفي عن لغة فايدة إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم سؤال كوبات طبعا سؤاله قال هر لو قري قال هذا لو قري way isugu jiraan sida darteed waxa laga yaabaa si toos ah in mawduuca ula xiriirin laakiin su'aasha koowaad waxay leedahay ducada salaada lagu furfurto oo ducaa ul istiftaaxa ah hadii aan iska dhaafo salaadeedii ma iga buraysaa طبعا aqoon way u leedahay bismillaahir rahmaanir rahiim salaadu waxay isugu jirtaa qayb hadii laga tago salaadu ay burayso waxba ka jirin iyo qayb hadii laga tago ajirka baa isdhimaya mooyaane salaadii ay sax noqonayso ducooyinka marka salaada lagu furfurto ee faatixada ka horeey marka salaada gasho walina aadan faatixada akhriin ducooyinka meesha gala oo wajhadu wajhiya lilladhi iyo subhanaka allahumma bihamdika iyo muxuu ahaay wixii lamid ah waajib ma laazimna ma waa sunno haddaad la timaado waa ajir siyaada ah haddaase aad ka tagto salaadaadii waa saxe ma burayso wallahu aclam jazaaka allahu khayran baaraka allahu fiik su-aasha xigta waxay leedahay sheekh soon ayaa iga tegey haddana sanadkii dambe soon kalaa iga tegey oo jaanis aan ku qalleeya ma helin sidoo kale sakaatulfidrigii waan iloobay mashquul dartii oo ma aanan bixinin yani ciidii ramadaan maxaa ila gudboon aan samaynayaa midda ku saabsan soonka ka tagay waa inaad qallayso sidii aad u awoodi karto waa inaad u qallayso waxaa quraanka kariimka wuxuu sheegay faman kana minkum mariidan aw ala safarin fa'iddatu min ayaamin ukhra ruuxii safar ama xanuun uu uga tagay soonku
waa inuu maalmihii ka tegay dib ka qalleeyo oo uu la yimaado waa marka qallahoodii waa lagaa rabaa naftana gacan kuma haysatid waqtigana adigu uma talisida intaan lagugu imaanin iska dadaji taa waa wixii soonee kaa tegay waa inaad qallayso sakaatul fitriga aad halmaantay waxay ahayd markaad saa u xusuusatayba inaad bixiso laana ruuxa hadduu waajibka halmaamo shareecada waxaan uga barannay wuxuu laazim ku noqonayaa markuu xusuusto haddii salaaddii waajibka ahayd halmaan kaaga tagto ama hurdo kaaga tagto nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam falyusallihaa idaa dakaraha markaad xusuusatee ugu horraysa waa inaad tukato wakadalika sakaatulfitrigu waa waajib haddii halmaan ay kaaga tagtay marka ugu horraysateed xusuusatay inaad bixisay ahayd haddaadan weli gudinna waa inaad guddo ood bixiso lianna asxaabu alacdaarka dadka cudurdaarka uuga tegay waajibaadku uga tageen inay dib kala yimaadaan weeye wallahu aclam jazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiik su-aasha saddexaad waxa ay leedahay sheekh waxaan ahay qof khayrka jecel barashada diinta islaamka iyo dadka wan wanaagsan iyo culummada dhammaan laakiin marmarka qaarkood ayaa sidaan u joogo yaan ka caajisaa waxyaabihii wanaag ahaan soo sheegnay waxaanan ku mashquulaa daawashada filimaanta iyo dhegaysiga heesaha iyo daawashada ciyaaraha iyo waxyaabaha la midka ah sheekh maxay diintu ka qabtaa haddaan isku dhex wado labada arrimood maxaadse iigu naseexan lahayd ma mid mise mid inaad marmarka qaarkood khaldamayso oo lugtu kuu fakanayso oo naf iyo shaydaan kula tegayaan taa iyada waa soo sheegnay ibni aadam baad u tahay kullu ibni aadam khata' ibni aadam oo dhan waa gaf badan yahay laakiin waxaan ku soo sheegay wixii gaf ah ha ku madax adaygin hana ku tegin ilaahay makrigiisa iyo cuquubadiisana aamin ha ka noqonin waxaad dhici karaysa adiga inaad isleedahay ama xasanaadka kale faraha badaneed la imaanaysaa kabi doona ama aad ku tashanaysaba waad ka toobad keeni doontaa laakiin maxaa diidaya adoo xumaantii ku jira inay naftu kaaga dhacdo soo wax suroobi kara maa oo maalinta aakhara lagu soo saaro adigoo filin saqajaana daawanaya ilaa ruuxa wuxuu ku dhintay baa lagu soo saaraa ama qashin ku dhex jira in lagu soo saaro waa dhici karta sidaas daraaddeed xumaantu hadday kaa dhacdo way kaa dhici ibni aadam baad u tahay ka toobadkeen ka soo noqo ilaahay dembi dhaaf weydiiso qalbigaagu ha ka xumaado muxuu ahaayey inaadan ku noqonaynin go'aanso xataa mar labaad hadday kaa dhacdo haddana soo noqo mar saddexaad hadday ka dhacdo soo noqo soo noqoshada un adiga hawaayin xayle mar kastood soo noqoto ilahay waa kuu dhaafaya mar kastoo lagaa adkaado balaaya ku jiidato haddana aad soo noqoto ilaahay waa kaa aqbalaya marka soo noqoshada adiga iyo towbadda marnaba ha seegin ha isdhihin khaladkaagaa batay ilaahayna kaa aqbali maayo maya taa waa sheeko shaydaan waa ilaahay mar uusan wax kaa aqbalayn ma jiro soo noqodkaagana waa jecel yahay shuruudii uun hagaaji shuruudii uu wax kaaga aqbali laha hagaaji middaa mid waaye midda labaad waxaa iyadana wanaagga ka mid a khalad hadduu kaa dhacay khaladka inaad xasanaad fara badan aad ku kabto oo maalinta qiyaamada marka la tago laba kafadood baa la saarayaa halkan waxaa la saarayaa kafadan wixii xumaan aad la timid kafadanna waxaa la saarayaa wixii aad wanaag la timid labada kafadood kii dheelida oo cuslaata waad maraysaa marka saas daraaddeed baa saxaabada waxaa caan ahayd ruuxu markuu khalad ka dhaco maalan soom badan buu la imaan jiray sadaqaduu badin jiray wahaakada salaaduhu badin jiray caaishoo kaleeto yacni waxa weeye ama saxaabada kaleeto waxay ku leedahay hal khaladoo ka dhacay baa laga yaabaa 40 addoon inuu u xoreeyo
intaasoo xoolaa inuu sadaqaysto calashaani maalin baan qalad galay marka daacada inaad badsato calashaani khaladaadkaagaa badan way fiicanta laakiin mid baan kaaga digaya midda khaladkaa waxa weeye inaad tidhaahdo adeerada aniga xumaantana waa iska qasanaya dhankanna wanaagga waa wadaya kafadda uun wanaaggaa badan doona ood u xisaabtanto maadaama wanaaggaagu badan yahay dee xumaantana iska wado ma aha xumaantu waa inay noqoto xaalado khaas ahoo naftu ku jiidatay ama shaydaan ku jiitay oodan raalli ka ahayn oo aadan muxuu ahay jeclayn waa inay noqoto laakiin ha dhiganin qaacido la yidhaahdo xumaantana waa wadahayaa wanaaggana waa wadahayaa taasi ma fiicna xumaantu ha noqoto waxaadan ku talagelin oo kaa dhacay waxaadan qorshaysanin oo lagugu ibtileeyey aadan ku faraxsanayn oodan jeclayn inaad ka soo noqotona aad rabto sidaa ha noqoto wanaaggana midkaad jecelshahay mar walba ku dadaalaysa daacadu ha noqoto insha allahu tacaala wallahu aclam jazaaka allahu khayran baaraka allahu fiik su-aasha kale waxay leedahay sheekh meherku ma waajiba mise waa sunne ninkaygu se waysada naiga jabiya su-aasha hore meherka waxaan u fahmay xoolaha gabadha lagu meherinayo nacam hadday sidaas tahay meherku waa laazim meherku waa laazim laba mid haddii meesha gabadha lagu meherinayo lagu magacaabo oo la yidhaahdo intaasaa meherkeeda ah waa sax in laga aamusana waa la heli karaayo goobta gabadha lagu meherinayo aan meherba la sheeginba oo markaa waxaa la dhihi doonaa hadhow gabadha gabdhaha la midka ah waxa lagu meheriyo unbaa meher looga dhigi doonaa oo halkaasaa looga qiyaas qaadan doonaa laakiin guur islaam oo saxa oo meher la'aana ma jiri karo xataa hadday gabadha ninka kula heshiiso wax meher a ma rabee meher la'aan ha layga dhigo ma soconayso waa in meher la sheego ama meher dib laga qadaro markaa kadib gabadhu markay yeelato bay cafin kartaa hadday rabto inay cafido marka way cafin kartaa hadday rabtona way qaadan kartaa laakiin meherka waa laazim guurka sharciga ah inuu meher jiro oo gabadha ay xaqeedii uu jiro oo xoolo lagu meheriyo manaafacaad lagu meheriyo qiyaasta ay noqonayso iyagaa ka heshiinaya mar kastoo meherku yar yahayna oo fudud yahayna shareecadu waa jecesha ilaahay waa jecel yahay tabaaraka kharashaadka guurka in la fududeeyo waa maqsad ka mid ah maqaasida shareecada wallahu aclam jazaaka allahu khayran baaraka allahu fiik su-aasha kale waxay leedahay sheekh fasakha muxuu sharcigu ka qabaa su-aashii labaad oo ahayd waysada ma jabisaa xaaska igu waa masale khilaafiya wa saxaabadii baa isku khilaafay ilaa maanta la isku khilaafsan yahay waxaa xoog badan inta aan garanayo inaysan dumarka taabashadooda gacanta iyo jidhka isgaadhay inaysan waysada jabinayn laakiin waxa waysada jabiya ay inay galmada tahay taana waxaa faa'iideynaya nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo wayse qaba buu xaasaskiisa la seexan jiray hal maray wada huwan jireen hal gogol bay ku wada seexan jireen waana wayse qabi jireen waxaa ku tusaya isagoo salaad ku jira oo tukanaya buu xaasaskiisa marmarka qaarkood lugta ka taabanayay isagoo sujuudsan bay caaisha lugta ka taabatay kullu daalika axaadiista ku sugantay xadiis lagu muransan yahay wuxuu sheegayaaba xataa intuu dhunkaday inuu tukaday marka sida raajixii xoogga badan inaysan dumarku taabashada caadigaa ee jidh istaabtay inaysan waysada jebinaynin baa xoog badan laakiin galmo wixii gaadha ayaa waysada jebinaya nacam masalada fasakhu waxa weeyaan labada ruux haddii gurigu dhaqmi waayo oo isfahmi waayaan oo dhibaatada ka dhalanaysa wada joogidda ay ka badato maslaxada ka dhalanaysa wada joogid iyo mafsadada hadday mafsadadu badato marka waxa weeyaan ninka waxaa la siiyey awooda inuu gabadha furi karo ma raba inuu la dhaqmo dee awood baa lagu siiyey iska fur haddii gabadhu ay ninka nacdo oo guriga ay nacdo ayadana waxaa la yidhi qaabkaad uga bixi karto waa qaabka khuluca la yidhahdo khuluca wax weeyaan inay u celiso wixii ay ka qaadato kadibna uu sidaa ku sii daayo diidadu marka xaggeedu ka socotaa
haddii xuquuqdii labada ruux gabadha xuquuqdeedii uu dayaco ama xuquuqdii gogasha ha noqoto ama xuquuqdii dhaqaalaha ha noqoto markaana laga waayo war ama xuquuqdii bixi ama gabadha siida markaa kadib baa waxaa soo faragelinaya awood soo farageliso maxkamad iyo dawlad baa soo gelaysa marka awooddii dawladda marka waxay samaynaysaa inay ninkii gabadha ka furto fasaqa horta kaasaa la dhahaa awood buuna u baahan yahay ama waa inay dawlad islaam ama waa in maxkamad sharciya ama waa in qaali sharciya ama cid mujtamaca meeshaa deganay ay ku og yihiinoo awood leh waa inay markaa xadhiggii goyso oo awood isticmaasho fasaqa kaasaa la dhahaa xaalaadka qaarkood baana shareecadu ogoshahay nas nebiga ka sugan oo ku soo arooray ma jiro laakiin khulafaa'u raashidiin baa samayn jiray oo ay ka sugan tahay fuqahada iyo kutubtoodana waa ku qoreen marka waa masale asal leh laakiin xuduud aad cidhiidhi u ah baa loogu dhaqmayaa shuruudna waa leedahay waxaan saa u leeyahay innaga soomaalida ah baabka isaga ama qodobka isaga khaladaad badan baan ka gallaa khaladaadka waxaa ka mid ah in wadaad aan qaalina ahayn awoodna lahayn arrimahana aan loo xil saaranin oo meelihiisa iska jooga inta loo tago la yidhaahdo ifasaq oo xoogaa yar intuu qaato kadibna waraaq qoroo yidhaahdo waan kaa fasaqay ninkii oo maxaad fasaqi kartaa awoodba ma lihida yaa kuu dhiibay waa masale khalada waay masale khalada waay waxaa kaloo khalad ah dumarkii sabab fasaq keeni kartaba iyadoon jirin inay iska fasaqdaan ninkeedii oo biilkii gogashii xuquuqdii wax walba diyaar la'ah inay aayar ay maxkamadda intay u tagto ay isaga dhanba kala fiiqda ay kala tuurtaba ayadana wax saxsan maaha baabka marka fasaqu waa baab shuruud leh waa baab dawaabid leh waa baab loogu talagalay xaalada khaasa in wax lagu xalliyo laakiin sidan annaga aan inta badan u isticmaalno ma saxsana wuxuu u baahan yahay marka in jidkiisii iyo dawgiisii la mariyo haddii la mariyo asbaabta uu ku imaanayana asbaabtii sharciga ay noqoto jihada qaadanaysana ay jihadii loogu talagalay noqoto markaasi waxa way xadhiggu waa ku go'aya furiinkana go'aankiisa way qaadan karaan sidaa wixii ku dhacana markaas sax wey wallahu aclam jazaaka allahu khayran baaraka allahu fiik su-aasha kale waxay leedahay daawada timaha lagu jilciyo dumarku ma marsan karaan waxaa la socota isla iyadii midda ciddiyaha lagu madoobeeyo maxay iyadana diintu ka qabtaa baasha timaha lagu jilciyo weligiin baad waad weydiinaysaan maydan ka dhergin miya tima jilcise iyo timadoo la midabeeye iyo waa masaa'ilun mar kasta la isweydiiyo waxaan u malaynayaa uun muxuu ahay inaydan jaahil ka ahayn waxa timaha lagu jilciyo hadduusan caafimaadka timaha iyo madaxa dhib u geysanayn wax dhibaataa ma laha hadduu yahay kiimika jidhka caafimaadkiisa dhib u geysanaysana ma bannaana dhanka unbaa laga fiirinaya qodobka labaad ee laga fiirinaya waxa weeye timahan aad jilcinayso inaadan cid ku siraynin oo adoo tima adag inaadan mid wadaada ku khaldaynin ayaduna waa sharti haddaad wax ku khaldaysana sax maaha hadday caafimaadka dhib u geysanaysana sax maaha labadaa hadday ka badbaadana dhib ma leh amaa ciddiyaha bahasha la mariyo hadday tahay shay qara leh shay jirmi leh oo qara leh oo jidhka ka korreeya waxay diidaysaa dahaaradii bay diidaysaa waysaqaadkii biyihii bay jidhka u diidaysaa qabayskii waajibkaa bay jidhka u diidaysaa jidhkii qaar ka midaan dahaaradiiba qaadaninba waxaad ka dhigan tahay sidii ruux dhinacna ka weysaystay dhinacna aan ka weysaysan bitaali weysadii ma ansaxayso qabayskii waajibkaa jidhkii qaar baa qaatay qaarna ma qaadanin ma ansaxayo hadday tahay marka shay jirmi leh oo kor fuulaya jidhka korkiisa lama ogola markaad dahaaro u baahan tahay haddayse tahay shay jidhka dhexdiisa gelaya sida cillaanka oo kale wax bannaanka yaalla ma aha laakiin jidhka gudihiisu ku jira kaasi dhib ma leh kaa dhib ma leh marka saasaa iyadana loo kala qaadayaa wallahu aclam baaraka allahu fiik jazaaka allah khayr gabadh ba waxay leedahay sheekh qur-aanka waan dhameeyey waxaan rabaa inaan xafido laakiin baryahan waxaa igu culus akhrintiisa
markastoo aan akhri damcana waxyaabo kale un baan uga boodayaa maxaad igula talin lahayd qur-aanka xifdigiisa aad buu u fiican yahay laakiin waxaa ka fiican hadday isu kaa qabato fahamkiisa fahamka iyo macnaha qur-aanka barashadiisa taa ku dadaala tafsiirka barashadiisa ku dadaala maxaa yeele qur-aanka maqsuudkiisu waa inaan macnaha fahanno liyadabbaruu aayaatih kadibna markaad macnaha fahanto inaad ku camal fasho xifdiga markaa ilaahay hadduu kuugu daro ka sii fiican waxaaga wax lagugu dar waayo saas daraaddeed waxyaalaha kuu kaalmayn kara waxaa ka mid ah qur'aanka macnihiisa haddaad fahanto waa kuu dhadhamaya waad macaansan laakiin haddaadan macnihii garanaynin hadda waxa weeye macaankii baa kaa maqan waxaan ku dhihi lahaa markaa tafsiirka iyo barashada macnaha qur-aanka ku dadaal insha allahu tacaala waa midda labaade qur'aanka xilli maskaxdaadu degan tahay ood firaaqo u haysa akhri mar qalbigaaga uu soo jiidanayo ood jeceshahay akhri waxoogaa markuu qalbigaagu yaro diidood u aragto yacni waxa weye iska daa yuusan dhibsanin xilliyada marka waxoogaa munaasabka ah salaada subax oo kaleeto xilliga aad tukato haddaad heli karo salaatuleylka oo kale xilliga guriguba kala degan yahay oo ilmuhu hurdaan oo dadkii wada seexdeen haddaad soo kacdood qur-aanka ku tukato xataa haddaadan xifdisnayn misxafka kaga tukato waad heli karta kitaab qur-aanka inaad soo qaaddood kaga tukato ood habeenkiiba hal jus ku tukato waxyaalaha yacni aad iyo aad muxuu ahay alla u tilmaamay wey ee rabbi qur-aanka kariimka uu muxuu aha qur-aanka ku yidhi inna naashi'ata alleyli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila xilligaa way xilliga maskaxdu ay furan tahay oo qur'aanku aad kuu saamaynaya ka mid marka xilliyada jaaniska la fiirso shaydaanka iska naar oo muxuu ahay waxyaalaha qur-aanka kuu diidaya shaydaanka ka mid ah waxaa ka mid a waxyaalahan qalbiga gala heesaha iyo muusiga iyo qalbiga munaafiqnimay ku dhaliyaan qur-aanka waa u diidaan waxaasi haddaad dhadhansato macaankii qur-aanka qalbigaaga ka baxay maxaa yeelay yacni kullamaa uu qalbigu wax xun qaato waa madoobaanaya waa mugdiyoobahaya iftiinkii buu waayaya khayrkii baa ku adkaanaya xataa salaaddii baa kugu adkaanay marka dambe daacadii oo dhan baa kugu adkaanaysa sidaas daraaddeed waxyaalaha xumaanta iyo macaasida qalbiga daxalaynayana ka fogow xilliyada munaasibka qur-aanka ku dadaal inaad akhrido insha allahu tacaala muxuu ahay ilaahay waa kuu furaya macnaha ku dadaal inaad fahanto oo tafsiirka barato xifdiga hadday noqoto isaga laftiisa dawaabid iyo wuxuu leeyahay qaab qur-aanka loo xifdiyo laakiin xifdigu muxuu ahaye aad buu muhim u yahay waa fiican yahay haddayse isu kaa qabato saan ku idhiba macnaha iyo tafsiirka ku dadaal insha allahu tacaala oo kaas ku horumar wallahu aclam jazaaka allah khayran baaraka allahu fiik su-aasha kale waxay leedahay sheekh waxaan leeyahay gabdho iyo wiilal qaangaadh ah waxaan la rabaa waxbarasho iyaguna guur ayay doonayaan anigana guurkaa lama rabo ma ku dambaabaya arrintaa iyada haa waad ku dambaabi gabdhaha ha guursadaane daa wiilashan haddaad guuri u kala gto u guuri sababtu waxa weeye adiga waxbarashaad la rabtaa laakiin dadkani baahi baa haysa haddaadan baahidooda xalaal ku xallinin maadaa ilaalin kara ma ilaalin karti gabdhihii meeshaad waxbarasho la rabtay ilaahay ha kuu xifdiyee fitno inay dhalataa dhici karta gabadhani waa baahanta adigana baahideedii ma dabooli karti waa inaad baahideedii si xalaala inay ku daboosho inaad ku dadaasho waay haddii baa cid munaasaba aad u hesho gabadha guurkana ha ka daahinin waxbarasho wixii ilaahay u qoray way baran haddii kaleetana hooyo guri bay noqonoo khayr iyo wanaag bay qabsan way dhowrsoonaan sharafkeeda u ilaashanaan haddiiba cid munaasaba gabdhaha loo helo ha loo guuriyo xilli waxaan joognaa aada halis u ah waalid badan baa gabadhu waxbay ii baranaysaayoo jaamacad bay iigu jirtaa say u hayeen bay garac u soo hoysay walciyaadu billaah oo sharaftii gabadhu dhimatay oo xumaani timid oo aakhiradeedii ku ciyaartay balaayaa taalla meesha adduun balaayo joogtaan marayna
saas daraadeed gabdhaha u guuriya haddaba dad munaasab u heshaan wiilasha sidoo kale xilliga ugu horeeyo guurkoodu suurtagal noqdo ha loo guuriyo laana waxa weeyaan guurkani waa ilaalin wuxuu ilaalinayaa dadkii buu ilaalinayaa yaa macshar الshabaab nabigu sallallahu alayhi wasallam dhalinyaro guursada buu nabigu sallallahu alayhi wasallam dhalinyaro guursada maxaa yeelay xubinkiina waa ilaalinayaa sharaftii buu ilaalinayaa qiyamkii buu ilaalinayaa khayrna waa soo kordhaya marka gabdhaha ha ka daahinina guurka dhalinyaradoo dhan guurka hala dedejiyo hana la fududeeyo waliba hala fududeeyo guurka yaan la adkayn shuruudahan faraha badan ka daaya dahabkan imtixaanka ka daaya dahabkan imtixaanka ka daaya labada ruux haday isguursadaan oo isfahmaan oo isla dhaqmaan shaki ma laha wuxuu ninku hayo waad ka heli wuxuu hayaba waad ka heli adaaba ka daadsanba adaaba ka daadsan saad uga daadsan leh farsamadii hadaad hesho oo aad ninka hananto isagii xoolihiisa baad iska leh laakiin marka hore waa shuruudahan faraha badan ee la hor dhigay ka daaya guurka sax ruuxu inuu diin ahaan iyo akhlaaq ahaan ku anfaco oo aad la noolaan karto la dhaqmi karto taas asaas hadaad shakhsiga noocaas hesho wax badan hasiya adkayn ilaahay wuxuu jecel yahay guurka in la fududeeyo rasuulkiisina sidaas uu jecel yahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi kullama uu guurku fududaadana zinada cidhiidhi galaysa markastoo guurka la adkeeyana dadku xaajadoodii si kale ku gudanayaan waa fasaadayna marka insha Allah ta'ala Allah idin barakeeyo khayrka iyo guurka iyo wanaaga caruurteena aan kula dadaalo insha Allah ta'ala daahintana ha laga daayo xilligan khaasatan la joogo maslaxa kuma jirto wallahu a'lam jazakallahu khairan wa barakallahu fiik su'aasha kale raacda su'aal ma ahe waa jawaab ay soo bixiyeen gabdhuhu su'aal xalay duruustii la socotay waxay yiraahdeen waxaad wadaadka weydiiseen in gabdhuhu ay calculator wataan gabdhuhu calculator ma wataan nimanka Yurub waxan qaltaagay yiraahdeen marka taasina waa jawaabtoodii kulay inay joogaan baa fiicnado idin maqlayaan laakiin labada qaybood mid walba markii la joogo wuu gar leeyahay in maxkamad la idin qaado oo la idin wada dhageystaad ku fiicnaan lahayd meeshaas soo bixilayd yaa khaladka wada marka hadda idinkuna gar leehidin iyaguna gar leh صح wallahu a'lam barakallahu fiik waxay leedahay su'aashan kale dumarka xanuunsan ayaa waxaan ka gubaa infectionka I don't know tafsiirkiisa aad uma garanayo ma dambiba أنا لفتي هذا ما فهم كره هذا جبتان ضب أيته النبي يقول صلى الله عليه وسلم آخر الدواء الكي أما وحوها وأكره لأمتي الكي داود الصدح ويكون كتاب النبي صلى الله عليه وسلم شرطة محجم توبين كان ليس توبي وشربة عسل يكبب ملبا إيا والكي يقبد يدبك لكن دبك يقبتانك ومضى إذا وأوك هنا يا ابن النبي صلى الله عليه وسلم markii xal kale la waayo dhan buu dabka loo isticmaalaa daawo laakiin inta xal kale la heli karo daawo kale la heli karo dabka la iskuma daaweeyo haday marka gabadhu ka wado ama koronto ama dab ayaan u isticmaalaayo wax ku daaweeyaa waa sax waana banaanta laakiin waa goorma markii daawo kale oo dhan wax tari weydo waa sidaas nabigeenu sallallahu alayhi wasallam alayhi xadiiskiisa ku sugan wallahu a'lam bisawab جزاك الله خيرا بارك الله فيك سؤالك kala sheekh waxay leedahay waa laba su'aalood waxa bariyahan aad loogu ibtilaysan yahay sida aad muxaadaraadooda ku tilmaantay waxyaabahan socialka ah Facebook iyo balaayo book iyo waxyaabaha la midka ah oo telefoonadii iyo lagu wada shubtay waxa inta dheer filmadii baad aad uga digteen xaaraanta ahaa in la daawado waxa soo baxday mid iyada aan la yiri lagama maarmo in ajir laga helayo aad moodo leeyahay musaaraco raqa qaawan oo gabdhihii wada hoos fadhiyaan iyo raggiiba gabadhii ragba waxay diintu ka qabtaa wax weydiin ogaal baa la yiraahdaa taasoo kale wax weydiin ogaal waxa taqaanaan inay khaldan tahay lama weydiiyo niman qaawan inaad daawato
إلهي القرآن الكريم كوحكوري وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن دكتادو إني حمان كدعدو ووحان إلهي تشعلين دكتادو دقيست إندها أبو وحان إلهي تشعلين إني داودان كل ذلك وحاران وصايشا هذا صوبتي صونا بدن أينا وانيقا إذين شيغيو الدنيا مركي هربا ابتليسنيد هذا ندادعو نما كدرستي أيان مرينا هذا يسوسي راعيننا هذه سقا أرورية وحي أنضنتو كما رنسين وإذا كقات هذا ما ويلو بهانتيني وقتك آتكو بحسان مجالات فربضان وخير إذن كسوق لياتنا انتاسو مجال وخير كهليس أما أغيران أن دين تاذا نباتو قيسانين يبقى كاقي أخلاق هذا اللي هلي وهذا وقتك عليس كوغي هيبا آتكو بحين كريس marka waxyaalahaas yaan lagu lumin oo yaan lagu kadsoomin waada la isaga ilaaliyo wixii uu telefishinada iyo internetka iyo wixii looga maarmi waayo ha noqdo wixii uu markaa ku anfacaya oo diintaada anfacaya oo dunyadaada anfacaya akhlaaqdaada anfacaya aakhiradaada anfacaya wixii manafacaad laakiin baabkeeda kale ee balaayada iyo fitanka ah halka hore loogu baabaay يعني لغو خلدمنا هلا يسيلاليو والله أعلم. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. وقتك ورد ما درتي إن شاء الله سؤالنا نقول بيسيننا هاي حلقة رجل صلاة السوق اللي ينبغي تشوفها. قبل ما حلا الشيخ نيك يجيب عن كلا تجني كدينا لهم سؤال شديد ويدان وانا حالي كما هين هاي أرندا سنغنيسا. مسألة السؤال الشيء نينك أقول مربع هذه عدة هذا كل كسوع شديد. هل دلقدنا مركي ورا kugu furay ama dalqadii labaad uu kugu furay asagoo wax u dhiman yihiin oo dalqada u dhiman yihiin haduu ku furay ciidadiina aadan wali ka bixin soo cishiga waa xaq u leeyahay waa quraanka si cad u sheegay masalada ayada wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalik inta ciidada ku jirto ninkeeda u xaq le soo cishiga adiga ama jeclo ama jeclana ama doon ama doon waa ku soo ceshida haduu dhaw ku soo cesh xaskiisi baad hadhow ama adigu la dhaqan oo guri iyo gogol ogolow ama diido waxa tirada adeer kuma ogoli hawl kale way taas laakiin ma ugu xidmayo xarigii ma soo noqday jawaabtu waa haa oo mar rabe hawl ku taala waa rabidi rabilaantu mas'ala dambe لكن حاسكي باتاي وانا كسو عشدين كاني اسغانا حق له مساله ايدا اللهم hadii kugu furay wax uu ka qaatay haduu kugu furay xoolo isiibiyo waa ku furaya sidoo waad xoolo ku siis meerkii cafiibu ku yiri waa ku furaya meerkii baad cafidi xaq allahayd baad ka tanaazush ilmaha oo xanaanadooda xaq u lahayd gacan ku hayntooda ayaa tiri waa kaaga tanaasulay oo wuxuu ku yiri hadaad ilmaha ii deynayso waa ku furaya xaqi baad u deys sidaas uu kugu furay hadiiba xaqka oo ka tanaasushay ama wax aad siisay uu dhaafsaday furitaanka kuma soo xishan karo laana marka waxbaad kala gadateen sooma waxbaad kala iibsateen asagoo wax ka iibsaday hadana shariicadu xaq u siin mayso soo cisho saas macna laakiin si dabiici oo caadi haduu ku furo marka soo cishiga isaga xaq u leh dalqada koobaad iyo talabaad tasaddexaad hadaad ku tagto ayadana soo cisho warkeeda male هذا مركز حرة والعدة ترسل كدبنا عدي إلهي كو قرات قرسانيسا وبالله التوفيق جزاك الله خيرا خير الجزاء وبارك الله فيك وحنفلها إن شاء الله وكدرني محاضرتي سؤاله انتبه إلهي شيخ ميزانك حسناتك هاو قدروا إنك إلهي نقو أنفعه انت أي نكسو قبيسانينا بإذن الله تعالى وحندردار منا in lagu dadaalo insha Allah cilmiga culimada laga qaado in lagu dhaqmo guriyaheenna insha Allah isbedel rasmi ah oo ka muuqdo ilaahayna ha ina waafajiyo arintaas iyada ah waxa kale oo idin sheegaynaa iclaam ahaan barnaamijkii shalay dadkii aan ogeyn way ka qayb qaadan karaan culimada la soo xiriiri karaan gabar hadda soo ila soo xiriiday baa jirta oo lacag soo dhiibtay halkan horena aan xalay kolley u ogeyn barnaamijka ducana doonaysa in loo duceeyo waxay leedahay waxaan u sadaqaystay aabahay oo dhintay awlaad saalixana in ilaahay siiyo hal igu duceeyo sheekhan ku wareejin doonaa
gabdhaha kale kulligood ducada waa la wada doonayaa insha allah qof waliba waxa uu jecel yahay ee khayr ilaahay ha u fududeeyo waxa uu ka baqayo balaayana allah ka qabto sheekha u dhameystiri doona gabadh kale oo soo gaadhisay lacagtii ay isku qorteen waa jirtaa iyadana waan haynaa dadkii wadaana way la soo xiriiri karaan kuwa kalena saaka keeneen buu leeyahay wadaadkan jazaahullahu khayran almuhim dadkii wax isku qoreen way keeni karaan dadkii qorshe cusub hadda hayaana way la soo xiriiri karaan culimada sheekha iyo insha Allah duco gabagaba ayaan uga baxayaa oo jazaakumullahu khayran ilaahay tabaaraka wa tacaala cidii wax bixisay Allah ka aqbalo sadaqa jaariya Allah uga dhigo ilaahay ha ugu dambi dhaafo muraadkooda wanaagsan ay jecel yihiin Allah ku siiyo waxay nacab yihiin Allah kaga xifdiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala khayraadka ugu furahana ku barakeeyo rizq waasic xalaala Allah ugu furo ilaahay haday guryo leeyihiin oo caruur leeyihiin ha ugu barakeeyo hadayna lahayna kuwa barakaysan Allah ku siiyo diinta Allah ugu xifdiyo khaatimada Allah ugu hagaajiyo intii hore u bixisay inta hadda bixinaysa intii dib keeni doontaba inta loo bixiyay meyti aan Allah u aqbalo oo qubuurta ugu waasiciyo qiyaamada